dadka qaar waa sida xisaabtii oo kale, xaalkooda iyo raadintoodu aad bay u dheer tahay, balse qiimahoodu mar dambe waxaad ogaanaysaa inay eber tahay, yacni zero. hala yaabin ruux aad jeceshahay ruux kala jeclaaday, maxaa yeelay daanyeerkaba lagama dhaadhicin karo in uu malabka ka macaan yahay mooska. qofkii maanta ku dhaho welcome, beri ayuu ku dhahayaa bye bye. weligaa qofa ku tiirsanaan inta adduunyada joogto. ku tiirsanaaw ilaah subxaanahu wa tacaala, asagana tala saaro, asagana ku xirnaaw walaal. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh oo islaam iga dhigay. haddaan islaamnimo ku dhintona waxaan ahay qof faraxsan. ilaahay ayaa mahad iska leh iga ilaaliyey daalimiinta iyo gaalada xunxun. ilaahayna waxaan ka baryayaa inaan islaamnimo ku dhinto. walaalayaal, islaamnimada ha naga muuqato, diinteennana kor u qaadno, aan iska dhaafno gaaladan aan ku daba da'anayno mar waliba. waa iga dardaaran. nin walba ha fiiriyo adigoo qabriga lagu sii wado. nin walba ha fiiriyo adigoo carrada lagu gadinaayo. nin walba ha fiiriyo adigoo su'aalaha kugu bilowday, ma ku baasi doontaa soo ku dhici doontaa. nin dadka cibaadaysta ka mid ah ayaa wuxuu arkay wiil dhalinyaro ah oo aad u qoslaayo. kadib ayuu ku yidhi, waryaa miyaadan maqal aayadda dhahaysa wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya? miyaadan maqal inuu ilaahay yidhi mid idinka mid ah ma jiro? hadduu jiro waxaa loo aroorinayaa naarta. jidka siraada mustaqiimka ku yaallo jahannamo korkeeda ayaa loo aroorinayaa. kadib tuma nunaji aladiina taqow wanadaru aldaalimiina fiiha jathiya. waxaan kala baxaynaa dadka meesha loo wada arooriyay dadka wanaagsan oo marka ay dunyada joogeen dhowrsaday, waxaana uga tegaynaa daalimiinta kuwa gaalada ah ayagoo jilbaha ku fadhiya naartan ku dhacaya. adiga miyaa ogtahay marka inaad ka badbaadayso? miyaad ogtahay marka sidaan u qoslaysid? marka dhalinyaro sidaan u nahay waan qosolnaa qosolka badan, ma fiicno. adduunyadan waa laga tegayaa. maracad ayaa liskaaga duduubaayo, iil madow ayaa lagu dhigayaa, tixriga ayaa wehelkuu noqon doona. maalin un ayaa xaafadda laga qaadayaa adigoo lagu oranayo miidkii, magacaagana wuu isbedeli doonaa. marka su'aasha taalla waxaa waaye, ma tahay qof ilaahay ku xiran? ma tahay qof ilaahay agtiisa wax dhigtay? walaal, assalaamu calaykum. walaalayaal, waa idin salaamay. salaam kadib waxaan rabaa duco uu nabigeenna sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay markay qorraxdu dhacdo in la dhaho ay wanaagsan tahay. qorraxdu markay dhacdo ducadan dheh: bismillaahi alladii laa yadurru maca ismihi shay-un fi al-ardi walaa fi as-samaa wa huwa as-samiicu al-caliim. ha idinku celiyo: bismillaahi alladii laa yadurru maca ismihi shay-un fi al-ardi walaa fi as-samaa wa huwa as-samiicu al-caliim. walaalayaal, aad bay u fududahay. habeenkaasoo idil ducadaas taa akhrisato markay qorraxda dhacdo, habeenkaasoo idil dhibaato ma arkaysid. fiidiyogan hadduu ku soo gaaray sii gudbi walaalahaaga sida ay uga faa'iidaystaan. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وإذا نلت محبة الله ماذا فقدت؟ لم تفقد شيئا. وإذا غابت عنك محبة الله ماذا وجدت؟ لم تجد شيئا. haddaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan xiriir wanaagsan la yeelanno, nolosha adduunyadu way noo macaanaan. dadka idil maanta waxay leeyihiin nolosha waan fahmi la'ahay, waxba ma haysti. taasina waxaa keenayso ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriirkiisa ayaa meesha ka baxay. allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay: waman yattaqi llaaha yajcal lahu min amrihi yusra. ruuxii allah subxaanahu wa tacaala ka cabsada, amuurihiisa iyo wuxuu doonayo waxaan oga dhigaynaa fudayd.
marka walaal Allah subhanahu wa ta'ala xiriir wanaagsan la yeelo waad liibaanaysaa insha Allah. aabaha sifadiisu waa adeeg laakiin hooyo sifadeedu waa raxmad. haddii 9 cunug oo kala dabeecad ah hal meel isku keeno way wada raali gelinaysaa. mid walbana haddii la weydiiyo yay hooyo u jeceshahay ilmaha mid walba wuxuu dhihi ani. laakiin aabaha sifadiisu asagu waa adeeg. maxaa yeelay hal wiil hadduu arko baar falaayo oo waxbarashada ku dadaalayo wuxuu dhihi kan aniga i raacay markaan dhintano asaga ayaa i duugi doona asagana ii soo duceyn doono. marka walaalayaal waalidiinta baari aan falno insha Allah. dhalika bi anna Allaha huwa al-haq وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.